السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي السلام يا أصحاب halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan iyo salbo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan ku faaqido dhowr arrimood oo hadda ku soo kordhay colaadii ka dhex qarxday mar kale Iran iyo waliba Mareykanka qodobada aan doonayo muuqaalka inaan ku fiiriyo ayaa waxaa ka mid ah waxa ugu dambeyntii la xaqiijiyay in mid ka mid ah diyaaradaha ugu muhiimsan ee Mareykanku ay leeyihiin in markaasi la soo riday waxaynu markaa fiirin doonaa diyaaradan maxay tahay iyo muhiimadda ay Mareykanka u leedahay waa maxay ayaan ku dul hakanaya waxaan sidoo kale aan doonayaa muuqaalkan inaan bal ku fiiriyo ama qodobka labaad waxaa dib u soo laabtay qorshihii ay dowladda Mareykanka muddooyinkii hadda la soo dhaafay oo dhan ay waday oo la xiriiray inay doonayso inay la wareegto jasiiradda muhiimka ah ee Kag Island la yiraahdo oo ku taala gudaha gacanka Persia ama meel aan aad uga fogeyn marinka Hormuz ayadana waynu fiirin doonaa iyo waliba muhiimadda ay leedahay jasiiraddan iyo waliba meelaha muhiimka ah ee ku dhex yaala oo dowladda Iran ay markaasi ay leedahay ugu dambeyn muuqaalkanaga waxaynu bal ku fiirin doonaa wararkii hadda ugu dambeeyay iyo Iran oo beegsatay ilaa 85 xarumood oo Mareykanku ay leeyihiin oo ku yaala kaliya Bahrain iyo Kuwait waa 85 goobood oo laba dal oo kaliya ku yaala ayay Iran ay markaasi ay beegsataa iyo hanjabaado tirabeel ah oo dhinacyada ka imaanaya wararkii ugu dambeeyay qasaare la sheegay Iran uu soo gaaray iyo arrimaha oo dhan ayaan bal muuqaalkan ku soo koobaya soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo sidoo muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaariyay taariikhdu waa 8 July 2026 waana markii labaad oo maanta hawada ku kulmeen fadlan hadduu muuqaalka idiin soo gaaro muuqaalka like saara channelka isku xir si aad ula socotaan wararka ugu dambeeya oo halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walbaba aad ayaad mahadsantihiin oo aynu bal ku bilowno diyaaradda magaceeda la yiraahdo MQ9 waliba nooca aan amniga ah ama nooca aan hubaysnayn ay dowladda Iran ay xaqiijisay ugu dambeyntii inay soo riday oo dhanka Mareykanka laga soo riday diyaaraddan maalin walba waynu maqalnaa waa maxay muhiimadda ay diyaaraddan ay leedahay markii aan macluumaadyo kala duwan aan akhriyay aad aan u fiiriyay waxyaalaha ku saabsan diyaaraddan waxaan ogaaday diyaaraddan inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu muhiimsanba oo dowladda Mareykanku ay leedahay wali markaynu ka hadlayno dhanka sirdoonka waa mid ka mid ah qalabka sirdoon ee ugu muhiimsan oo dowladda Mareykanku ay leedahay diyaaraddan la'aanteed waxa la oran karayaa dowladda Mareykanku ma aysan awoodin inay duqeyso meelaha muhiimka ah oo ay duqeyso markaynu ka hadlayno duqeymaha kala duwan ee Mareykanku ay ka geystaan meelo badan oo caalamka ka mid ah tusaale ahaan oo kale sida hadda colaadda dalka Iran oo kale marka diyaaraddaanu waa mishinka basaasa meelaha la doonayo in markaasi loo qorsheeyo waana diyaarad runtii aad iyo aad khatar u ah wali markaynu ka hadlayno midda wax basaasta oo kaliya ilaa 50,000 oo feet ay hawada ay gaari kartaa taasoo xataa diyaaradaha caadiga ah 30,000 bay gaaraan ka sii shishe meesha ay tagi karto halkaas ayay ka sawiraysaa kala soconaysaa wax walba oo dhaqdhaqaaq ah oo markaasi dhulka ka socda waa diyaarad ilaa iyo 24 saac ka badan hawada taagnaan karta ama cirka ku jiri karta ayadoo bateriga laga bedelinin ayadoo shidaal lagu shubinin ayadoo waxba lagu sameeynin 24 saac ay diyaaraddan awood waxay u leedahay inay shaqeyso inta aan tala soo dejiyo bateriga iyo waxa aan laga bedelin marka waa diyaarad operation aad u tiro badan fulin karta macluumaad badan aruurin karta xogo tirabeel ah soo aruurin karta waana mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan oo sirdoonka dalka Mareykanku uu xilligan u isticmaalayo markii aad fiirisaan macluumaadka ku saabsan diyaaraddan oo ay qorayaan warbaahinada waaweyn marka diyaaradda sida u muhiimsan way diyaaradda markaasi la soo riday waxaa la sheegayaa in mar walba oo diyaaradahan ay ku soo bataan ama hawada Iran inay ka dhigan tahay inay Mareykanku qorsheynayaan weeraro hor leh marka saacadii hadda la soo dhaafay intii weeraradu aysan dhicinin iyo intii ay dhaceen kadib aad ayaa diyaaraddani waxa la sheegayaa inay hawada Iran ay aad markaasi ay ugu jiraan oo ay aruurinayaan macluumaadyo kala duwan waxyaalaha macluumaadyada ah oo diyaaradahan ay aruurin karayaan ayaa waxa ka mid ah meelaha Iran ay wax ka soo ridayso saldhigyadooda iyo meelaha la midka xarumaha iyo dhan way sawiri kartaa wayna la socon karayaan marka haddii halkan dhowr gantaal laga soo rido dabcan waxay ka dhigan tahay in halkaas uu ku yaalo saldhig ay Iran ka soo rido qaar ka mid ah gantaaladeeda ay soo rido ama qaar ka mid ah droonada Mareykanku waxay halka u calaamadaysanayaan inay tahay mid ka mid ah
saldhigyada Iiraan. Marka qaab noocaaya ayay macluumaadka u aruurinayaan. Dowladda Iiraan ayaa marka ugu dambeyn soo riday diyaaradda noocaasa waxaana la soo bandhigay diyaaraddaas oo gubanaysa oo dhulka taalla. Intii colaaddu ay socotay intii hadda ka dambaysaba marar tira badan ayay diyaaradda noocan oo kale ah ay dowladda Iiraan ay soo ridaa. Iiraanna waxaad moodaa inay fahantay markay diyaaraddan soo dhawaato oo meel dhow ay soo gaarto inay markaasi ay beegsanayaan. Waxaana la oran karayaa ugu yaraan 5 ilaa 6 haddaysan ka badnayn oo noocaan ah ay dowladda Iiraan ay soo riday intii colaaddu ay socotay oo haddii aysanba markaasi aysan ka badnayn. Marka diyaaraddaas waa diyaarad noocaya muhiimadaas ayayna u leedahay Mareykanka waana sababta Iiraan ay u beegsanayaan mar walba oo ay fursad ku helaan. Taa waa intaa. Dhanka kale marka la fiiriyo waxaa soo laabtay qorshihii ay dowladda Mareykanku sheegi jirtay muddooyinkii hadda lasoo dhaafay oo dhan oo ahayd inay Mareykanku doonayaan inay la wareegaan jasiiradda Kag Island la yidhaahdo oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu muhiimsan oo dowladda Iiraan ay leedahay. Jasiiraddan oo macluumaadyo cusub laga helay weliba warbaahinta weyn ee CNN ee hadda wax ka qortay ayaa markii aynu fiirino macluumaadyadaas waxaynu arkaynaa in jasiiraddu ayba tahayba dowlad goondeeda ah isla markaasna dowladda Iiraan ay aad iyo aad markaasi ay muhiim ay ugu tahay. Marka la fiiriyo macluumaadyada CNN waxaynu arkaynaa in ay jasiiraddanu ay waxyaalo badan oo muhiima gudaheeda ay markaasi ka socdaan ama ay ku yaalaan. Tusaale ahaan oo kale waxaa ku yaala xarumo waaweyn oo Iiraan ay ku kaydiso ama ay ka dhoofiso gaaska dabiiciga ah. Gaaska dabiiciga ahna waa mid ka mid ah waxyaalaha sida weyn adduunka loogu dhoofiyo oo ay qaniga ku tahay dowladda Iiraan. Marka xarumo natural gas ah oo muhiim ah ay leedahay jasiiraddan waana meelaha dabcan lagu kaydiyo lagana dhoofiyo natural gaska ay dowladda Iiraan ay markaasi ay leedahay. Waxaan sidoo kale aynu arkaynaa inay leedahayba aeroport dabcan ciidamada iyo qaab ganacsi loo isticmaali karo oo jasiiraddan ay leedahay. Aeroport gooni ah ay jasiiraddu ay leedahay. Waxaa kaloo ku yaala dekedo kala duwan oo weliba kuwa shidaalka laga dhoofiyo iyo kuwa waxyaalo kaloo ayaguna muhiim ah dabcan markaasi laga dhoofiyo. Waxaan sidoo kale aynu arkaynaa in jasiiraddu ay leedahay xarumo military oo dabcan ay ka howlgalaan ciidamada kala duwan ee dalka Iiraan. Dhankan kale markii la fiiriyo isla jasiiraddan waxaynu arkaynaa in xarumo koronto ay leedahay in meelo waaweyn oo storage ah oo shidaalka lagu kaydiyo inay isla jasiiraddan ay markaasi ay leedahay. Marka waxaa la oran karayaaba jasiiraddanu waa dowlad goonideeda u taagan oo wax walba oo dal uu leeyahay markaasi leh. Marka aynu fiirino xarumaha militariga marka aynu fiirino ganacsiyada waaweyn ee ku yaala marka aynu fiirino dekedaha marka aynu fiirino aeroboorada iyo wax walba marka aynu fiirino waxaa la oran karayaa jasiiradda Kag Island la yidhaahdo waaba dowlad markaasi goonideeda u taagan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump oo maanta ka hadlay mar kale jasiiraddan ayaa wuxuu sheegay in weeraradii xalay ay dowladda Mareykanka ku qaaday jasiiraddan inaysan beegsanin xarumaha shidaalka ee ku yaala jasiiraddan oo ciidankiisa uu ku amray inaan markaasi aan la weerarin. Hadalka Trump ayaa wuxuu u dhacayay sida tan oo wuxuu yiri waxaan xalay weerarnay jasiiradda Kag Island waxaana burburinay xarumo badan oo jasiiraddan ku yaala laakiin waxaana eriyaan la taabanin saliidda waxaa laga yaabaa inaynu la wareegno jasiiraddan waana halkaasi meesha ay ka soo laabatay hadalhaynta weyn oo markaa la leeyahay Mareykanku wuxuu doonayaa inuu qabsado jasiiraddan taasoo horay ay saraakiil waaweyn oo uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ay uga digeen dowladda Mareykanka. Waxayna saraakiishan ay yiraahdeen haddii Mareykanku ay isku dayaan in jasiiraddan ay qabsadaan dhibaato xoog leh ayay markaasi kala kulmi karaan si fudud ayayna ciidamada Iiraan u beegsan karaan ciidan walba oo taga jasiiraddan oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Ugu dambeyn waa maxay wararkii hadda ugu dambeeyay ee ku saabsan colaadda ka soo cusbanaatay Mareykanka iyo Iiraan. Markii la fiiriyo wararkii hadda ugu dambeeyay waxay dowladda Iiraan ay sheegtay in ilaa 85 goobood oo Mareykanku uu ku lahaa Bahrain iyo Kuwait inay markaasi ay weeraraan. Marka la fiiriyo 85 goobood oo kala duwan waxay muujinaysaa dhowr arrimood oo kala duwan. Marka ugu horeysa in Mareykanku uu 85 goobood uu ku yeesho laba dal oo kaliya ayaa waxay muujinaysaa sida Mareykanku uu dalalkan u dagay iyo sida uu la wareegay iyo sida uu u qabsaday. Hal dal in intaasoo xarumood lagu yeesho ama laba dal in intaasoo xarumood lagu yeesho waa arrin muujinaysa inuu Mareykanku la wareegay ayaa la oran karayaa Kuwait iyo weliba dalka Bahrain. Haddii lagu dar lahaa Imaaraadka meeqay noqon lahaayeen dabcan way ka sii badan lahaayeen ama way ka badan yihiin. Dhanka kale
waxaa idinoo la yaab leh sida dowladda iiraan ay ku ogaatay 85 xarumood oo markaa maraykanku uu ku leeyahay laba dal oo keliya. waa arrin kaloo ina tusaysa in colaadda maraykanka iyo iiraan ka dhexaysa ay tahay mid quraarad cad la iska daawanayo, midaysan waxba qarsoonayn, mid dhaqdhaqaaqyada labada dhinacba si aad ah markaasi ay iskula socdaan. ayadaana waynu ka dhex arkaynaa marka la fiiriyo beegsiga ay sheegtay iiraan inay beegsatay 85 goobood oo kala duwan. sidoo kale madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay inuu caawa mar kale uu weerari doono dalka iiraan oo duqayntu ay tahay mid sii socon doonta. hadalkaas oo ay ka jawaabtay dowladda iiraan ayaa waxay ku hanjabtay haddii maraykanku isku dayo inuu mar kale weerar kusoo qaado iiraan caawa in gebi ahaanba ay xiri doonaan marinka hormuus oo dib loogu laaban doono xaaladii uu marinka hormuus ku sugnaa intii ay socotay colaadda ee 40 maalmooda. waxay sidoo kale iiraan ay gebi ahaanba ay joojisay wadahadaladii kala dhexeeyay dowladda maraykanka ee ku saabsanaa arrimaha nukleerka iyo weliba wadahadaladii kale ee labadan dowladood ee ka dhexeeyey. in wadahadaladu ay istaagaanna waa arrin kaloo muujinaysa in dib loogu laabtay colaadii u dhexaysay maraykanka iyo iiraan. lama yaqaana sida ay xaaladdu ay noqon doonto, laakiin isha hadda waxaa lagu hayaa bal tillaabada ay maraykanku qaadi doonaan iyo weliba sida iiraan ay uga falcelisay weeraradii tirada badnaa ee xalay maanta ka dhacay gudaha dalka iiraan. inta la xaqiijiyey haddadan ilaa 8 ka mid ah ciidamada dowladda iiraan ayaa ku dhintay weeraradii xalay iyo maanta ay qaaday dowladda maraykanka, waxaana la rumaysan yahay inay iiraan hadda aad busy ugu tahay aaskii hogaamiyahoodii ayatollah cali khamenei, oo haddii aasku uu dhammaado wixii biri ka dambeeya ay iiraan markaasi ay bilaabi doonto aargoosasho iyo beegsi ka dhana xarumaha ay maraykanku ku leeyihiin gobolka iyo weliba meelo kale oo markaasi muhiima. inta ayaan muuqaalkan bal kusoo koobayaa, wixii dambe oo arrimahan kusoo kordha ayaan bal muuqaaladeena dambe ku fiirin doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.